waxaan rabaa inaan dib u yara noqdo mar haddii doodii la furay soo dhaweyntii way dhammaatay marakan aragtideeda cabiraya in wax la isku tuurtuuro soo dhaweyntii ka mid tahay saa degora ku qarxa insha Allah dabcan Soomaaliya marxaladaheeda isaga sheekeynayno marxalado dhowr ah ayay soo martay marxaladda isticmaalka marxalad yar oo kooban oo 9 sano oo dawlad rayid ahayd iyo marxalad dheer oo 22 sano oo nidaam military ah oo xukunku uu meel kaliya ku urursan yahay dadkana meel qura loo jiheeyo iyo 30 sano oo dalku dagaalo sokeeye iyo hogaamiyad kooxeedyo isugu jira kuwa madani ah iyo kuwa military ah iyo kuwa diini ah ay muddo dheer soo maray wadeed waxa daba socday dadaallo dawlad dhis ah oo 2000 ka soo bilowday oo maalinba heer soo maray oo hadda meel soo fariisanayo isagana runtii lahaa marxaladihiisa kala duwan waxa intaas oo dhan ay qirayeen in dalkani uu ku jiro geedi socod dawlad dhisid oo marxaladaha ku habboon shacabka Soomaaliyeed ee daalan inay u banbaxaan wadadiisa hay sida la og yahay maamul dawladeed waxa saldhig u ah dhismo ama aragti siyaasadeed oo fadhida nidaam sharci ku dhisan aragtidaas siyaasadeed isu bedesha iyo maamul dawladeed oo isaguna sharcigaas ku dhisan haddaanan leeyaradaasi isku fariisan waa waxa in badan loogu celceliyo xasilooni siyaasadeed baa loo baahan yahay waxa weeye haddaan isfaham siyaasi imaan sharci kasta oo la sameeyo meel lagu maamulo ma uu helayo waxaa kaloo ogtihiin siyaasad kasta oo jirta waxaa saldhig u ah falsafad siyaasadeed oo siyaasadda ka dambaysa oo hogaamisa sida aan la wada soconno falsafadaha siyaasadeed ee Soomaaliya soo martay marka laga tago midii dimuqraadiga ahayd oo koobnayd oo ceebaha u badan ee lahayd inay ahayd dad markaas xukunku ku cusub yahay aqoontoodu liidato dhaqan qabiil oo yaqaana awoodda dawladnimeed oo yarayd ayaa waxa aad loogu sheegaa inay gacan bidixeeyeen hantidii yarayd iyo awooddii maamula yara haysay oo inta badan waxa la yiraahdaa musuqmaasuqa badnaa musuqmaasuqaas jiray 60meeyadii wili waa jira resource yar baa keenaya shaqooyinka ilaa ay hadda la bixiyo waxa la yiraahdaa waa la musuqmaasuqay hantida yar ee dawladdu leedahay waa la musuqmaasuqay musuqmaasuqaasi waxa uu ka dhalan karaa waa faqriga iyo awoodda yar ee dhaqaale ee la haysto laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo awood maroorsi siyaasadeed oo weyn ma jirin laakiin 22 sano wuxuu dalka baray marka laga tago musuqmaasuqi kale iska soconaya intay dadkan faqriga ka baxayaan iyo dhibaatada wuxuu baray maroorsi xukun iyo aniga ayriyo lagama daba oran karo arintaasi waxay abuurtay walaaca maanta qof kasta oo Soomaaliyeed oo jooga uu leeyahay waa walaacsan waxaan hadalkayga gundhig uga dhigayaa falsafada siyaasadeed ee xukuumadda hadda jirta oo muddo badan aanan fahamsanayn oo aan hadda maanta walaalkay Mahdi aan ka bartay waxa ii soo muuqatay marka laga soo bilaabo 2 March ama bishii saddexaad xeerkii la gudbiyay ee ahaa BR-ka oo ahaa in single constituency iyo liis xiran marka laga soo bilaabo oo hadda lagu tilmaamay in laga tanaasulay oo lagu xejiyo mid la yiri hybrid boo ahaa oo baarlamaanku uu sameeyay oo lagu xejiyo waxa halka hadda taagan waxa sartu ka qurbaysa waxa way falsafada siyaasadeed ee ku dhisan tahay doorashada ayaan la iska waafaqsanay Puntland maxay hadaba aragtaa Puntland waxay aragtaa tan iyo markaas in dalkaani uu ku jiro geedi socod siyaasadeed oo 4 sano soo socota ay muhiim u tahay in loo tago iyadoo heshiis leeyahay oo heshiis laga yahay habka dawladdu u dhismayso
sida awoodaha loo qaybsanayo sida resource-ka loo qaybsanayo dalka meeshu aadayo oo dastuurka waxyaabaha la yiraahdo qabyu ka yahay saldhig u ah haddii intaas oo la sameyn la yiraahdo dalka doorasho la gelinayaa oo dalka dhanba hal goob uu noqonayaa oo dalka dhan hal maaragtay xisbi buu noqonayaa oo ku guuleysanayo oo xataa lagu dhacay sharcigaasi lagu dhago madaxweynaha dadweynaha dooranayo oo dastuurka waxyaabihii fundamentalka ama asaasiga ama mabaadi'da asaasiga la hareer maro horta halkaas waxaa ka soo baxaysa koox rabto talada dalka inay xoogto aniga saan u akhriyo waa saas 17 September kii aan ku heshiinay wuxuu ahaa nidaam cad oo qeexan oo awooddu ay muuqato oo sida loo maamulayo cadda laakiin markaan ka tagnay Muqdisho gudiyada sida loo dhisaangareeyay sida la rabo in loo maamulo mar labaad waxa ka cad kii markii hore laga diiday oo civil constituency-ga ahaa mid bedelay oo ah doorashadu inay dad isku mid ah ka soo baxaan oo 4 sano oo dambe dalka haddana xoog lagu xukumo aniga waxaan ka digayaa marka aragtidayda waxa weeye dalkan jajuub uma baahna taladiisan in la xoog lama baahna dadka waxa la rabaa in la dhex dhigo doodahana waa inaan laga xanaaqin anisaan qabo qof walba ra'yigiisa dhiibto iyadoo la iscaynaynin oo la isxumaynaynin waxa loo baahan yahay dalkan dal la qarsan karo oo dad ay la carari karaan anigu inuu yahay uma haysto gabayada ma aqaan laakiin gabaygu uu tirinayo Cismaan Yuusuf Keenadi uu yiri waxa ku jirtay koox uu ku tilmaamay wadaniyiin iyo koox kale ka soo horjeedaya oo garnaqi doon sida uu dhahay haddaan ku celin karin laakiin waxa ii soo baxday villa Soomaali kaliya wadaniyiin inta kale tara inay u baahan yihiin in loo garnaqo annaga hadda waxba kama qabo in loo garnaqee waxaan rabnaa cid inoo garnaq lahayd inaan ku heshiino bas haddii ay odayaasha baarlamaanka noqonayaan iyo haddii xeer beegti kale noqonayso aan waxaan isleeyahay garnaqsi waa loo baahan yahay waana mid meesha ku jirta xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay aniga ma rabo inaan aad ugu dheeraado maxaa yeelay intan waa intii ogeyd laakiin waxaan aad u ayidayaa in doodo macno leh oo ku dhisan falsafado siyaasadeed oo ku qotoma sharciyo sax ah oo noqonaya masiirka boqolka sano soo socota siday Soomaaliya u ekaan lahayd in goobtan laga curiyo dambay ku jirtaa waxaan kaloo intaa rabaa inaan ugu soo dhawaado doorashada hadda 2021 la filayo dabcan heshiiskii 17 September intii gashay oo anigu aan ka mid ahay wili ma arag cid diidan oo heshiiskaas madaxweyne xasan sheekh oo u hadlay musharaxiintana inaan heshiiskaas dhib ka jirin buu tilmaamay qof dhib ka qaba waa dhici kartaa laakiin waxaan maleynayaa inta badan inaan heshiiskaas dhib ka jirin waxa soo baxay habraacyo isaga daftarkiisa doodo way ka imaan karaan laakiin waxa ku qornaa qodob haddaan khaldanayn inuu jiro la oranayo habraacyadu waxa loo noqonayaa 2016 kii ahaa marka haddii khaladaad ka yimaado kii 2016 halku yaalaa marka maxaa dhiman waayo marka waxa dhiman marka waxa weeye in doorashadii haddii heshiiskii la ogol yahay oo baarlamaanku ansixiyay oo habraacyadii waxna qoran yihiin waxna hore loogu soo dhaqmay waxa la rabaa maamulka doorashada in hore loo galo oo aysan noqonin in koox siday rabto u maamusho waxa aanu ka digayaa marka mar walbana waxa la yiraahdaa doorasho ama go'aan unilateral oo koox leedahay ama qayb dalka ka ah halis aan laga soo noqon karin bukeed waxaan ku baaqayaa in la isku soo noqnoqdo ceeb maaha in la doodana ceeb maaha in wax la wala isaafinaya qodobada hadda u muhiimsan ee taagan ani marmar dad waxay yiraahdaan oo hadda dhalinyaro xoogaa hadallo loo soo dhiibiyay madaxweynaha waa Puntland maxaa gada ka galay oo hadda gada Soomaaliya ma horta doorashada laga hadlayo doorashada Soomaaliya ma ragadayaasha saaxiibadeen waxay dhaheen wasiidu aad afdheerida maxaa Soomaaliland ka galay horta Soomaaliya xidid iyo qaraabo iyo saaxiibaan halkay joogaano haddaan aan u hadal
ومسؤول سوماليا يا كهلايا وحان كهلايا ودور شذا الصومالية يهشيسكي لقالي دلدلالة أولية هي ما نول بإلا يرى هذا سيدو هذا صاحبك أحمد حوقا وحوير هذا كل جيب يقول نقط هذا كل جيس يقول نقط أنا الله والله أركينته مركا ركب أنا ويكهلا وحي الضوضة أما بنت الله أنا كجرت أما مالك لها كجرت إن قفكي مركا أي أمه قط وكهلا وهو حل الربو وحن وفرح سنة هاي وولي السيجارة وهم هالعلنا يا مدحنا الدولة الفدرالية في شركة كسوق كل سيدني يتصمد يضوض فرن أي بلابين ولي الرئيس الوزراء الآن وفرح مركي هو هذا الكلام وحن سلا مرتبة اللي هي هو هذا اللي مركو هذا حوجا هو اللي روح يصير ضوضي والغفر أنت هذا بيجو وحن سلا هاي دور معمودنا وخرسين ولا دودي دونا شرب جارجار ولا يلون دونا وحن أنا مرور بنقول عليها أو قصة هاي ذلكم دور شجلايو أنت أنشريني وحن كحرينا هل قضوا وحها دور الشغل يسلقوا قولي هاي أو وقت كده كل دعوة حتى نقولوا حن تاجرنا هاي وقت ولا وجوده وعريري لكن اللي يسلقوا قولها ضروري اللي يسلقوا قولي هاي هدي من ضد جار أو قولي هلا قالوا هدي ضد جار دور شدد بنقوليسها ذلكن وحال اللي يجري لبها ضلوا هالهيس وصوب حباجر أيامتها الإلاوي وها لو جوجين ما هو كلنا واحد يجري يا لو مدمر مركا هذا نين واحد جوجين متكلنا وله لو مدمر هذا سيدي لو كلا فدي ولي لو كلا فدي دونا هل نوجا هذا constitution كنقصه مدحونه هدايته حسن ويرادي كملجان وقبحه دستور كان ولي وكملجان بروفيشنال بنتلان ولي وحي حق لهذا إن الدستور كذا يكون رقمته إلا هارمونيزيشن لقى سمينايو ليس أقوليستينايو دور ده يديبنيسو أو سعة سومالي وهشينيش هذانا من هالهشينين أنا وحنا أتاجنا هاي دولة بس كان كشقينا هذا لكن بنتلان شقة يروها سقط استيدنا كلنا وحرجنا شقة وده إلى وحسوا خلطبين عاد فضنا أنت بماشي كنت يا صعب كهاليس كده كوح انتي لا soo kaxay sabciye waxay taraysa male runta in laga hadlaa raba ciyaal yar yar intii loo dhiibo maxaa la yiraahdaa bahalkii meelahan ilaa Facebook hadda wareeriye 10 qof hadlaysa niman xarfaan oo maxaa la yiraahdaa bahal lagu sameeyo intay barnaamijyo geliyaan 10 qof waxay ka soo saarayaan 200 qof marka hadda been hadii la isku sheego saaxiibkay qorqor ayada ma waxa ka bartay wuxuu nin damac badan xoolihiisa been loo askalo yiri maalin walba waa damac badan anaa kana soo waxaas macna sameeyay damac dalkan أنا وحن قبض ذلك ضد ودن قناة يوم باكش قين كذا ما لا دمعه